allah u naxariistay waxaa xalay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ku geeriyooday qunsulkii safaaradda Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cusmaan Aadan Idsan iyadoona maanta lagu aasay qabuuraha muslimiinta Langata ee magaalada Nairobi. Mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Kenya qaar ka mid ah wakiilada safaaradaha wadamada Islaamka ay ku leeyihiin Nairobi siyaasiyiin iyo waxgarad Soomaaliyeed ayaa goobjoog ka ahaa allah u naxariistay aaska marxuum Maxamed Cusmaan Idsan. Mas'uuliyiintii ka soo qayb galay aaska marxuum Idsan ayaa waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, wasiir ku-xigeenkii dowladda xilligeeda uu dhamaaday ee howlaha guud mudane xareed, safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Americo iyo mas'uuliyiin kale oo badan iyadoona dhammaantoodba tacsi ay u dareen dowladda federaalka shacabka Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya ee Kenya ay ku leedahay iyo waliba eheladii uu ka baxay allah u naxariistay marxuum Maxamed Cusmaan Idsan. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي هؤلاء حريصه محمد عثمان آدن إدسن وها قنصلكي سفير كحيانكي سفارة حالته أيقو بيرودي مقعد نيروبي عندنا سعركي سنوان وسوء أسني إلهي وحقوبر يا إهلدي سئي وقرابي سئي كل جنب إنه سمع ما نجسيه محمد أنا صاحب جارهن سفارة كلي كم بشقين نواكي بوها محمد عثمان wuxuu ahaa dadkii ila bilaabay safaaraddan furitaankeedii 2005 kadib markii safaaradii Soomaaliya ee Kenya la xiray 1990 markii aan dib u fureynay maxamed dadkii ila bilaabay kamid ahaa wuxuu ka saaray in la furo safaaradda. maxamed wuxuu kale oo gacan weyn ka geystay oo ka shaqeyn jiray oo gacan ka geystay soo celitaankii guriga safaaraddii halkaan ku leenahay waa soo ceshanay xoog badan buu saaray cid badan buu geliyay wuxuu kale oo kamid ahaa dadkii maxkamaddii markii la joogay maalmihii la tagi jiray maxkamaddii aan lahayn maqtaqaana marxaati ka noqday oo meesha ka hadlay marka ilaahay u naxariisto ilaahay ka barayno jannada ilaahay ka waraabiyo. maxamed wuxuu kaloo aad iyo aad u caawin jiray gacan ka geysan jiray maadaama uu qunsulka ahaa dadka Soomaalida oo soo qabto ama kuula xiro inuu gacan ka geysto nin wuxuu ahaa wadani ah Soomaali ah dadkana jecel marka ilaahay aan u barano. maxamed ilaa yaa ma uu xanuunsanaa ilaa iyo sanadkan bishii Febraayo ayuu xanuunkiisa bilowday waxa dhakhtar loo geeyay wadanka Talyaaniga lagu soo daaweeyay dalkana la keenay tii ilaahay waqtigiisa ayaa dhamaaday marka waa ilaahay u naxariisto. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan u taaganahay aaska marxuum Maxamed Cusmaan Aadan oo loo yaqaan Idsan oo ahaa diblomaasi Soomaaliyeed oo qaali ah oo ummaddu jeceshahay laakiin ilaahay baa jeclaadoo ka haystay samar iimaan Allah naga wada siiyo jannadii firdawsana Allah ka waraabsho. tacsi ayaan u dirayaa qoyskiisa eheladiisa qaraabadiisa safaaradda Soomaaliyeed iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto geeridan axdanta leh ku timid allah u naxariistay Maxamed Cusmaan Aadan Idsan. waxaan halkaan uga tacsiyadeynayaa saaxiibkayga qaaliga ahaa oo aan aqaano muddo ku dhow 30 sano anigoo ah Cali Dooy geeridan axdinta leh ee ku timid marxuumkaas waxaan uga tacsiyadeynayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marka koowaad marka xigtana dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu qaraabo u ahaa oo ay calaamad u tahay sida hadda ka muuqata aaskan dad kala duwan oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira oo wax badan ugu yaalay ayaan uga tacsiyadeynayaa. allah u naxariisan qaaliya oo ummadda Soomaaliyeed ay tabi doonto ayaa naga baxay. wuxuu ii sheegay in laga hayo xidid iyo dhabarka Talyaanigan aadaya bal soo duceeyo xaj markuu ka yimid bay ahayd kadib muddadaas kadib ismaana arag laakiin wuxuu ahaa nin wadaniya oo Soomaalida inta taqaanay kulli aan maanta looga sheekeynaynin nin Soomaaliya oo islaama oo wadaniya ayuu ahaa. lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waa meel wada jeedo naxariista jannada Allah ka waraabiyan leeyahay. magacaygu waa Xareed Xasan Cali waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka gaariyooday Maxamed Cusmaan Aadan Jigis Edson. Maxamed Cusmaan Aadan Idsan wuxuu ahaa haliyey Soomaaliyeed Soomaalina ka dhintay. محمد حسن جبريل إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد عثمان آدن تشيس
wuxuu ahaa safiirka qunsulka ilaa 2004 ilaa maanta inta u dhaxaysa Nairobi Soomaaliya. marxuum Idsan ayaa safaaradda Soomaaliya ee Kenya aan u soo shaqo tagin laga soo bilaabo bishii February ee sanadkan kadib xaalada caafimaad darro oo la soo dirsay isagoona tira ka dhowr mar ah xaalada caafimaad u tagay qaar ka mid ah wadamada Yurub oo ka mid yahay wadanka Talyaaniga inkastoo uusan ku guuleysan inuu ka takhaluso cudurradii uu ka cabanayay. Maxamed Cusmaan Idsan qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkan Kenya ayaa waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta rugcadaaga Soomaaliyeed iyadoona safaaradda Soomaaliya ee dalkan Kenya ay sheegtay inay u noqon doonto maalin xusid iyo waliba xusuus gaar ah mudan. Maxamed Cusmaan Xabiib, Royal TV, Nairobi.